بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Dr. Maxamuud Salmaan Warsame waxaan dhakhtar ilkood oo ka howlgala magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer dhamaantiin Ramadaan Kariim waxaan doonayaa maanta inaan muuqaalkan ku soo gudbiyo xiriirka ka dhaxeeya caafimaadka afka iyo ilkaha iyo bisha Ramadaan bisha Ramadaan waa bil cibaado waa bil isbedel badan ka jiro jadwalkii hore ee maalmaha caadiga ahaa sida daraadeed isbedelka awgeed waxa ka dhasha caafimaadka afka iyo ilkaha isbedel baasna ku yimaada sida daraadeed maanta mowduucan waxaanu kala qaadaynaa saddex qaybood qaybta ugu horeysa waxa weeye saameynta ay soontu ku leedahay caafimaadka afka iyo ilkaha saameynta laba qaybood baynu kala qaadaynaa waa qayb fiican iyo qayb aan wanaagsanayn saameyn wanaagsan iyo saameyn aan wanaagsanayn bay noqonaysaa saameynta wanaagsan ee soontu afka ku leedahay hadaynu ku horeyno waxa weeye marka ugu horeysa qofku haduu afkiisa si fiican u nadaafadiyo afurada kadib cashada kadib iyo waliba suxuurta kadib oo uu si fiican ilkihiisa iyo ilkaha dhexdooda uu cuntada uga soo nadiifiyo qofkaasi maalintii oo dhan afkiisa cuntada ma taabanayso maadaama uu sooman yahay sida daraadeed waxay meesha ka saaraysaa suuskii bilaabmi lahaa ee ilkihiisa markasta oo cunto qofku cuno ku haraayay ay meesha ka saaraysaa oo in suus cusub bilaabmo maadaama afkiisa daray yahay oo engegan yahay meesha uu ka baxaya oo hadii uu marka hore si fiican u nadiifiyo afkiisa taasi waa saameynta wanaagsan oo suus cusub ma bilaabmayo saameynta xun waxa weeye hadii uu qofku nadaafada afkiisa uu hagaajin waayo habeenkii markuu cashaynayo haduu cadeeyan waayo kadib sidoo kale suxuurta kadibna uu cadeeyan waayo ama si fiican u cadeey waayo qofkii isagoo cadeeyanaya oo cadaygiisa isticmaalaya ayuu haddana marka qaar uu ilkaha dhexdooda wax kaga tagaya waxa yar oo qofku kaga tagay iliga dhexdiisa muddo badan ayuu qofka afkiisa aan waxba taabanayn oo ay ku jiraysaa maadaama aan qofkii waxba cunayn waxna cabayn waxa isu kaliyeysanaya bakteeriyadii falgalkeedii iyo iligii oo kaliya oo aan wax khalkhalinaya iyo wax disturban ku sameynaya toona aanu jirin sida daraadeed qofkii muddo badan ayuu wuxuu chance u helaysaa bakteeriyadii inay suus cusub ku samayso kaasi waa qodob marka qofku inuu nadaafada afkiisa wanaajiyo siiba xilliga aanu soo sheegnay suxuurta dabadiisa ayaa aad u baraarujinaya sidoo kale qodobka labaad ee aynu ka hadlaynaa waxa weeye oo dadkuna aad isu weydiiyaan adeegyada caafimaad ee afka iyo ilkaha laga qabtaa soonta dhib ma u geystaan ama ma buriyaan oo adeegyadan la qabanayay dadkii ilkaha looga shaqeynaya rabadaantiisii qofka dhib ma u keenaysa dabcan waa maya arintaasi wax dhiba ma keento adeegyada ilkaha qofka loo qabto maydhista buuxinta dhuuxdaweynta ilka saarida ilka gelinta iyo macalbirta ilkaha lagu xidhaba wax dhiba uma geystaan soonta qofku soontiisa uu si wadan karaya iyadoo adeegyadaana loo qabtay kaliya waxay u baahan tahay taxadar in dhakhtarku muujiyo iyo inantaasi iska la shaqeynaysa iyo qofka bukaanka saddexdooduba oo taxadar ka yar muujiyaan waliba marka qofka afka loo meereeyo oo kale inaan biyaha isku siiban tumbo yaro baa jirta section la yiraahdo tumbadaasi si fiican bay u nadiifisaa oo candhuufta iyo biyahaba u qaata wixii afka ku jira taasoo baa lagu dadaalayaa si fiican loo sameeyo qodobka saddexaad ee aan isagana doonayo inaan mowduucan maanta kaga hadlaa waxa weeye waxa jira dad badan oo ilkahooda ay suus leeyihiin laakiin wax xanuunayo wax dhibatoona aan ku haynin laakiin waqtiga rabadaanta sida loo gaadho uu suuskii xanuun isu bedelo qofkii uu xanuun dareemo waxa laga yaabaa sanad buu suuska lahaa sanadka wax xanuuna muu dareemeen qofkaas laakiin maalinta rabadaanta ku noqoto muxuu xanuuna waa su'aasha ugu badan ee dad badan aad isu weydiiyaan runtii jawaabtu waxa weeye horta ilgu haduu suus leeyahay asalkiisaba waa xanuun joog markaan sida leeyahay waxa weeye iligu wuxuu ka kooban yahay saddex lakab waa ka sare oo inoo muuqdo wax la yiraahdo enamel lakabka labaadna waa lakabka ku xigo wax la yiraahdo dentin suusku markuu ka hore ka soo bilaabmo muddo halka jooga sanaday xataa ku qaadataa inuu halka joogo lakabka labaad buu soo gaadha lakabka labaad markuu soo gaadho isla sidiis leeg buyadana muddo badan ku qaadataa halka jooga qofku marka aanu soomanayn maalmihiisa caadiga iskaga jiro habdhiska difaaciisu aad buu sareeyaa cuntadiisa iyo nutritionkiisa iyo
wixiisu aad bay u wanaagsan yihiin qofka sidoo kale qofka waxa laga yaabaa inuu jimicsi sameeyo ama exercise intaas oo dhammi waxay ka caawinayaan qofka habdhiska difaaciisa inuu kor ahaado suuskii iyo dhibtii jirtayna aanay heer xanuun u qaado aanay gaarsiin laakiin sida cagsigeeda marka uu qofku bisha Ramadaan la gaadho ee awoodda qofkii daciifto ee qofkii muddo badan dhowr iyo 10 saac soomanaado laga yaabo xataa dadka qaarkood inaanay suxuuraninba intaasoo hawli isugu raacdo qofkii waxa dhacaya in bakteeriyadii afkiisa ku jirtay waxa jirta bakteeriya afkeena ku jirta oo la yiraahdo normal flora marka hore bakteeriyadaas wax dhiba ma leh waa harmless laakiin marka qofka xaaladahan ku soo la soo dirsaan ee habdhiska difaaciisa uu qofka hoos u dhaco waxa dhacaysa in bakteeriyadii ay ka faa'iideysato noqoto opportunistic bacteria oo isbedelka jireed ee qofka ku dhacay awgii inay bakteeriyadii ka faa'iideysato dabadeetna ay halka timaado oo ay xanuunkii iyo suuskii ay sii dedejiso falgalkiisii dabadeetna uu qofkii dhuuxa gaadho sida xanuun ku keeno sababta weeye sababta uu qofku waqtiga Ramadaanta iyo waqtiyada kale uu kala duwan yahay oo ilig markii hore caadi ahaa oo aan xanuun lahayn uu bisha Ramadaan oo kaliya xanuun sameeya waa sida marka waxaan talahaan soo jeedin lahaa bulshada inuu qofku iyadoo markastaba la doonayo qofku inuu waqtiyada oo dhan ka warhayo caafimaadka afkiisa oo dhakhtarka ilkaha booqdo oo la xiriiro haddana si gaar ah inuu bisha Ramadaan uga warhayo afkiisa iyo ilkihiisa qofku muraayadkiisa ku eego wixii ku soo biiray ee madowga ee isbedela waa dareemo uu dhakhtarka kula noqdo haddii kale isbedelada xun iyo dhibaatada ay keenaysaa oo habeen walba suuska uu sii fidaya aad iyo aad baa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaah